wararka imaanaya gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamo isugu jira kumaandooska Soomaaliya kuwa galmudug iyo ciidamo cadaan ah oo maalmahan guluf dagaal ka waday koonfurta Mudug ayaa la sheegay inay dib ugu laabteen deegaanadii ay markii hore ka soo duulaan tageen sida ay sheegayaan wararka ciidamadan ayaa qorshoodu ahaa inay duulaan ku qaadaan degmada Xaradheer ee gobolka Mudug halkaas oo ay gacanta ku hayaan xarakada Al-Shabaab dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamadan oo maalmo ka hor dagaalo kula galay Al-Shabaab duleedka deegaanka Camaara ayaa haatan la sheegaya inay ku laabteen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug halkaas oo markii hore ay ka soo duulaan tageen wararka ayaa sheegay in ciidamadan ay qayb ka ahaayeen kuwa Puntland waxaana taageeray diyaarado dagaal oo dul heehaabay deegaanada Camaara iyo Ceel Cabdi ee gobolka Mudug gudoomiyaha deegaanka Camaara Yuusuf Salaad Maxamuud ayaa sheegay in ciidamadu ay u dhaqaaqeen dhanka Gaalkacyo iyo Hobyo isagoo xusay in ay ku jireen ciidamo ka tirsan kuwa Puntland lama oga sababta keentay in ciidamadan ay dib ugu laabtaan deegaanadii markii hore ay ka yimaadeen hayeeshee dadku waxay u sababeynayaan dagaal xoogan oo Al-Shabaab wadada dhexe ay kula galeen ciidamadani degmada Xaradheer oo ah goob istiraatiijiya waxay kamid tahay meelaha ay ugu xoog badan yihiin xarakada Al-Shabaab ee bartamaha Soomaaliya iyadoona maamulka galmudug iyo sidoo kale ciidamada xooga dalka ee bartamaha Soomaaliya ay isku dayayaan sidii gacantooda ay u soo gal lahayd degmada Xaradheer Axmed Cumar Honkable TV Muqdisho